لما البانية لا يقول هذا فرحتي ممنوع متى حدث شتى كل كلام حلو هو بخير واحد ضرب dhibaatooyinka ayna haysta wax kamid ah qabyaalada waxa kamid ah wali dagaalo badan oo dhibaatooyinka markii dawladda burburtay dadka soo maray wali inayna ka bogsanay xanuunkii dagaalada oo is aaminaadi ayar tahay oo aynu wax wada qabsana loo yaqaan afka guudkeeda haddana gaar loo kala foqo hadayna inta ka bixin oo fagaaro waxaanu ka dhawaadnaa inaan isku raacina meel la gaarmeen hadaynu tuulo fikrana ونقول سيرة تولى دقيقة وحق قبنا ميرجارمين مركا وحنو صعنا إنه وحيالها جون ذينا كان قوقوا يكدينه وصيدي لبضي بيها كان ضي أي هذين مانتا وحول بهرتبان وأوران يعني أو قلها إيش برسيبها لوسيه الحمد لله هو تاسو كذا ويسار وصار وسيله وحكمنا وحيالنا رش لص عتري باتويك عقال شراح حكمتان dhibaatada ka haysta waqti khilaaf ka jira arurtaada iyo gurigaaga iyo inta familygaaga dhibaatada ka haysta waqti daldan iyo ummadan inta soo milyan oo isu tagtay oo doonaysa inay talaabooda qaado isfahamsiinteeda iyo soo goreysiinteeda iyo isu keenadeeduna inta laagta waa qiyaas kartaa waxa la yiri oo kamida qodobada ugu waaweyn ee aan la bedeli karin in dalku uu yeesho saddex meelood ka duulo taladiisu koow wixii sharciga diinta islaamka wasaliga lagu murmaayo laba suuqa ganacsiga iyo hantidu inay xorto suuq xor aynu ku socono hantidana qofku yeelan karo oo hantidiisa xor u leeyahay iyana waa islaamig oo diinta wasaafurti waa laba waa saddex tala wadaag dimuqraadiyad baa la yiraahdaa xisbiyada hanaanka badan baa afka casriga laakiin waxa uu noqonaysaa waa amruhum shura wa shurays inuu talada wadaag saddexaas ay noo balana waxa la qaaday intii shurada la bilaabo oo la yiraahdo taladii aynu wadaagno oo xisbiya badan la furo oo loo tartamo dabtana kolba cid codku u bataa socoto alxamdulillah iyadoo israaf la helin iyadoo waxa ay doctor dhibaatooyin inoo yaalaan iyadoo dhibaatooyinka ay marayno waxa adduunka oo dhan la yaabay oo ilaahay mahadiyo ilaahayna karsiyo awooda marihine inaynu 5-7 doorasho sameeyno oo loo kala baxo hal iyo hal qof oo aanay gaarin dawladaha Afrika badan ee la ictiraafsay dhaqaalaha badan haysta waynu isku bogaadinayna waynu u dhamayn xisbiyada tartamaya iyo dadka xisbiyada ku jira iyo xisbiyadu waa tala wadaag waa shura lama kala laha lama kala xigo barqalka inta la wada doonayna jiheeyay bi bulaan yaraanaya marka talada maraysa xisbiyadu markay booqayaan dadka wadaana culma dadka footeynayana culma laakiin wax waliba way koraan xisbiyadu way inagu cusub yihiin dhaqankeena ma waxaanu ka soo qaadanaa oo inoogu horeeyay oo dhalinyaradeena inta badan ku daataa oo kutub ka qoray inagu waxa ka weynaa qori xisbiyada aw yeesheen kama mahmaahin may aqoonin gabayadeena kuma jirto mahmaahayn kuma jirto xisbiyo qabaa'il baa ku jira marka xisbiyadii oo inu ka maarweeyay markaynu qabaa'ilka ka weeraanayno farabadanay marihiin waaya aragnimo dhalinyaradii imika bilowdada ka bilaabay aan ku xakameyn karo maxaa ku darsamay dadka ka soo farcatay xisbiyada ay hanaanka badan isku diin manihin isku dhaqan manihin nimanka ka soo farcabeen isku diin manihin soo wada dhaqan caruurteena waxa aragtay dhalinyaradeenii oo baaha la yiraahdo war baahin oo qof loo jeebku sito oo ay saa wuxuu soo deynayaan ayaa inoo dhex raacay xisbiyadii dabeetana saynu u doonayna taladeena iyo dhaqankeena inaanu u wadano iyo shaydaanida dhex yaacaysa ayaa ina qasab badan ma jirto meel isku xan karta laba dhaqan oo inaga ahayn oo ka soo baxda Afrika waxa dhacda marka mikrofoonada la soo fariistay ee la hadlaayo waynu taraara markaasa waliba
dee sooradu dhaqanka way isyar maagmaagtaaye waxa ku soo horreysay oo hawshii hore galay ila qoladii tala aqoonka iyo dowladda aqoonka ahayd ee garaadada dhaadheer iyo talooyinka lahayd harto naga yar haris oo naga yar gaabiseen warinta waa nagu yar baylayseen waxa ku soo deyseen qoladayadii loo yaqaan hadalka badan iyo dilaalka iyo malaalka oo markaa hadlayaan waxay doonaan sii daaya markaan mikrofoonka ka hadlayaan labadii saaxiibka ahaa labadii ka xashalaha عاقلكي سلطانكي أقوياهكي شيخكي كي سياسي ميكروفون كلا صوب استوى وضع كقاضية مركزا ومضى سؤالك شاء والله يابتها والله كوني ما توسكو قوية مركزا هذه لا ترى هذا والمقاصة نوتنا وحاسة ولا قياري ولا قاسة دولة كل سيارة وقال وحاي ولا قيام بدولة كل سيارة وحاسة ولا برند ولا ويس صحي ساي هاي صورنا نمك وحا يجي وحا يسكونه مقاصة فران لك الله ولا جري سارو يجينا واتوسين سان قرا كلام كل سنة وانا سأقول إنه سرعة كلامنا ساري قرا كل ساعة ولا ذيك مرتي ذيك أو صباحا ونمت كاملة قبل كسنة وحنون مت إذا كل حي أنا قدور سوى أنا شكته وحنا نقوم هذا قدين أنا وحنا نقوم هذا قينا صدق هاي سنة ودبي وهل كان نقول درنا وأنا آدي كم هذا قينا عروي الرولة إيه وضيارية وحكرتها إن نبتجريه دي سوريا سناك بقول كيبة الضباط مقروا كعدي سووا سنتين ننتهى على رأينا من الدورين هرمر كوين ما قرنا يانو بركة عليه شيء سعيد عبته مركو رجل ضدك يسفهمه أيه هرمركه يوحرس كلا جارة آد بان دولة هان يسوون آد بيدكم هذين ويدكم بقادين إن نبتجريه دي قبل الصور يسناك أي بقول كيف تضاد سحس الدبي سوى نكسناتي وأنا تانو دورنا إنت هذا نكعنه وتنقول رسالة دولة دولة من هالكات بعده أو أي بيروضه شرارك قبل هذا بري وحد من الأمية إلا نوض وحرقنا مياه مركائنا نوض لما يستفرو وهذا شقين يس أمراض يوحد من إسلاق رشدنا إنه رمينه كبعد نقول كينا أروجي سنو نقول كينا رباطيا لا يقرأ إنه قلنا إنه أمسنا إنه أغنى أنت مع ذلك أدونك لقاب وحد بعطيه أنت بوريه بريه قلبات با شداد معدن بض إيه حوله ولا خرا يضاق الفريسية أنت وانو كرنا ثالثي أنو تاكو قبل هاي نبانو بحنا وحين تنا نورير قولاس بريقو مركز سومالات صاروا إنه ساعة شيكتين معدنتي سكوي كلا وابي كدو هذا دهب كنا توشو دبارنا يا وحكي سكرويا آدوان يكون هذا غينا تبقى مال وعبو مريا بولتيجا إياه وحاسنا إباتيس كذا هاي وأنا حرينا دور الشيء كذا وأنا قريه وحيسو كان هو مع سنتين إياه ولا شقير ولا شقارة تكسر علينا تا شروق أول حاجة هذا الهوش لما يصير قال كل ما نسويه إن الوفر حول الله هي مدحوينياش عارك وعلورسي سيرة 9 ساعة أو 9 شرخ الرمية وحوانا ديارية وحاعد بالرهيبة صار رميسة وحي قبياء أوردن قرآن برصة كان صومرين هاي وين كسر شوابين وحنا غاك ريسات قشر ونويانا لكن محبدا عن شوي قولا بري إيه إلى إيمان تصور أسرعه أنت وحنا وصلت تويان يصير سرعة فرين ويجا على زي بيسار بيان إذا قررنا جانا سهول يرسوا وحنا كذا المشاريع ما أنت تلقى واحد ترى بوق بدن وحسبيها حسبيها معارضك آد بنوع عبرية كل مية دارنا هاي يوم الحوار دارنا هاي بقى هذا بدن بينوسوا شيء أنت أنا قبضتين وقررنا هي أنت أنا لصارينا الله يعلم وحنا لصاريو حق بيوري سؤال هذا واحد هذا ضوء تهم بادري إنك ضوء كلا هذا تهم بادله نك معارض كان مركز دبدا جوجو تهم بادلو والله وحي ما دورده ولا قضيه مدحوينه اسمه قاطع هذول هذا waxa kale xaq noogu leeyihiin inaan dhageysano waxa xaq noogu leeyihiin inaanu intii suurtagalaba u dol qaadano wixii aan sharci noo diiday waxa xaq noogu leeyihiin inaanu aad iyo aad ula qarcino oo toosho sawarsana inta waa ogolahay waanu furina hase yeeshee markaan halka marayo toob duhun baad dila mahma kala timaado
ninku markuu meel u muuqato waxa laga yaabaa inuu wax badan ka boodo oo wax badan isaguna ka xadgudbo oo halkaa u muuqato ma wax kale aanu arkayn inta haddii laga budo iyaguna ay isxakameeyaan annaguna waxaan laga tabanayo waabanu ogolahay iminkaan idin leeyahay waa ogolahay horena waa ogolayne gogol baanu ogolahay fadhigaanu ogolahay wada hadalkaanu ogolahay wixii aan sharciyii diidin haddaan madaxweynaha ahay ee aan sharciga hortaagnayn oo dhan baan ogolahay innaga iyo cid kastoo dimuqraadiyad xisbilana waa u joogta hawshaa iyo buuqaas maraykankaa la yidhaahdaa waa kuwa ugu horreeya inu wada eegnaa waa maraykan baa yidhioo waa dhoweytay doorasho ku jireen waa adiga arkaysa isu weeraraan gurigoodii 500 sano jira oo ku jijibiyey markaa xumadda hadalka iyo doorashada way timaadaa tiina waynu xakamayn mudaaharaadyaa jiray mudaaharaadyaad waxaanu ka doonaynaa keliya oonu ku qaban karnaa maadaama taagteennu daran tahay dadkeennu aanay aqoon caadifadeennu sarrayso waxaa laga codsoo sharcigu dhigaya xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suu doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya iminka nin kastoo halkan jooga ama muwaadin Soomaaliya dastuurku wuxuu leeyahay waxna uu dooran karaa waana dooran karaa qof kastoo halkan fadhiyo qof kastoo dibad jooga oo muwaadin Soomaaliya xaq wuxuu leeyahay madaxweyne soo sharaxo laakiin xeer baa qeexay wadada soo marayo ninku intuu reerka wadada kaligiisa soo sharaxay baa kursi yeeri maayo waa loo diiday xeerku ma ogola nin madax kaliya madax banaano yimaado xeerku ma ogola nin aan xisbi ka soo bixin waliba 3 xisbi la qaray dastuurka qoray waxaana loo qoray inteena waayelka waa garanaynaaye dawladii ka horeeyay kacaanka afweyne markii la ogaa ee dimuqraadiyaddu galay bad bay nala gashay jirib baynu kala baxno qeyn qaadna si taa loo yareeyo waxa la yiri 10 sanaba mar xisbiya badan loo tartamo deetana 3 soo baxay eego waxa la ilaaliyay in dadkii xorriyadda siiyo oo beelihii iyo dadka doonaya mar u yaacaan haddana ay koobnaataan soo qarnimadii dumin yaa la isku miisaan marka mudaaradka soo dhigay xeer baa qeexay xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisu ay nabad gasho mudaaradka soo dhigay nabadgelyada sida loo nabadgelinayo codsiba dawladda soo qorayaan tani kulay xisbiyada mucaaradka waa la isaga imanaya wartaasmeenu suurto galaysa warseenu dhaana wartaameenu qaban karayna war xageenu wax nabadgelina tiibaan dhicin waraaq wargelinay soo qoreen waxa lagu yiri isu keena way ka xanaaqeen war waxay noo ogolo weyn mermerinaya baan leeyahay mudaaradka uu dhaqaaqaya mas'uuliyadda reegana saarmaysa dhibaato inaanu bahardi ma ka dhacday dhibaato aan ina jeclayn oo diyaarahay haday dad ku dhaawacmeen waan wadana waxay naga dhiman dhaawac weyn ma jiro haday xarig tahay haday buuq tahay anaga dawladda xil baan saaran waxa tira dalka amnigiisa adaa qaabilsan marka amniga xasiil la wahday waxba la isku badiidana aad baan u ixtiraamna xisbiyada mucaaradka kuwa jooga iyo kuwa iman doona waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood qayb dadka kamida haddaana xisbiyadu heshiinin oo wajir waxa wadadina dadkii iyaga taageeray uu culoobaya nabadgelyada khatar baa galaysa marka eedu waxay ku soo noqonaysaa hogaamiyayaasha xisbiyada iyo dadka talada haya waxay sii furaysaa qolada dawladda inay dadaal badan sameeyaan waxay sii furaysaa madaxweynaha anna inta waan arkayaa diyaar inaan u xaliyay walaaladina hayla eegan bal waan codsanaya maanta way dhantahay wadadii xisbiyadu ay ururada ku tartamayeen waxaan u mahadnaqayaa oo mas'uuliyad weyn muujiyay oo qarnimada dhinacooda haya golaha wakiilada ee la doortay imika ee uu hogaamiyay Cabdirasaaq Khaliif oo isaguna si miirqabo odinimo uu hogaamiyo marka codaynayaan uma eegan xisbiga ka soo baxay uma eegayaan jeclaa isaguna markuu meesha fadhiyo waa oday qaran oo uma eego xageeraha ee xisbiga waajibkooda sidii ilaahay ku ogaanay waliba uu door bida gacanta u taagaa dabeetana cod ka soo baxa kol boqol ka arisiya kol boqol ka farxiya xisbiyada mar boqolada cid labada xisbiyadii baarlamaanka dhexdiisa arrin baa riixaya waa geed nibad bib ka riixaya
markaa raggani waa xeerbeegtii baarlamaanka ka fadhiya waana meel la dhaariyey maxaa guddoomiyahooda wax kaloo ku jiraa ma jiro annagu marka laga helo xisbiga kulmiyadda xilkiina waa hayaan madaxweynena halkii qaranbu taagay tee waa khasab ilan golayaasha wada shaqeena waa simanay labadan gole odayaal ka fadhiya dalka iyaga ila hayade waa iyo maxkamaddii sare saddexaas dalka iyaga go'aanka u dambeeyay marka anagu waan ixtiraamayna midda kale ma dhaqaaqi karo war maxaa qaranka u dana laakiin codka wakiiladu wuxuu ku socdaa dadka xilka haya inay qarannimo u codeeyaan markay codeeyaan in la ceebeeyo maaha waa laga dambeeyay waa la ilaalushay kala laga yimid waa ceeb dadka waxa lagu yiraahdo marka imika annaga foodkii u dambeeyay ee ay soo daayeen ururada in dadka gudida furaysa cod waliba way u codeeyeen way isweydaarsanayeen xisbi ma ahayn iyagoo baarlamaan codeeyay guddoomiyuhuna uu ku hogaaminayay aadna xasaasiyad buu lahayd aad baan isaga iyo baarlamaanka ugu mahadnaqayna dalku halkaas u marayaa waxaan ku faanaynaa inuu dimuqraadiyad marayno mudaaharaad iyo xisbiye isbedela iyo mucaarid kulul inaan isku eryeynayno faan iyo sharaf bay nootay magaalo kastoo taga haddaan madaxweyne ahay uma diyaarihi in sacab lay wada tubo uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo ninka iga soo horjeedayna war waxa wadadhan waa qalad xaq buu leeyahay laakiin miirqab ha igu raadana miirqab margu jawaabayaa waataynu ku meel gaadhnay dimuqraadiyaddaas waataynu ku higsanayno caalamka aynu kaga meel gaadhno ta dalkana intaasaan ku dhaafay iyo waxyaalaha jira nabad baa ka jirta waananu heshiinaynaa waananu isla saldhigaynaa weligeedba buuqaasi u dhacaa waanu xakamaynaynaa haddaanu siyaasiyiintii xisbiyadanahay intaa dhacdayna waynu ka wada xunnahay oo intaasay ku timid insha allahu in ka badan gaari mayso wixii dhexdeeda yaalana waa la xalleeya haddii la yidhahdo odayaal iyo rag waayaraga u joogo weligeed baa xalli jiray wixii dhaca taana waxaan leenahay shacabku iyo waxba iyo ka khalkhalin inay dhibaato ma jirto laba albaaniga lagu eedeeya faraxantii ma mid saxaad waa jirtaa kolka raaxan ku abkhayl oo hadaraab sababta waxaba bakhayl ma yihi haddana waxaa noo yar bay khaaminaya saanu qaranka u gaadhno labadaa dhexdooda wax ka daydayna laba qolada mucaadka waxay u idhaahdaan kursi wuu si dheersanayaa adoo wuu kororsanayaa adoo wuu siyaasanaya oo horta awooddaa male inaan kororsadaan shacabka ogol mooyaan ta kale ma doonayo naanays la idhahdo waa loo kordhiyey wuu sii dheeraaday markii hore har cad baan tartamay anaga iyo qolada mucaaradkii iminkana kuwa soo bixi doona har cad baan tartamaya waddadii doorashada dadka lagu galayay waa laba marxaladood sharciyada waajibiyey marka hore waa in xisbiga soo baxaan 10 sanaba waa asal oo dadkii 10 sano xidhay soo galaan sharcigeedina waa dheey haddii xisbiga la dhameeyo tii kale uu taagan tahay dhibaato ma jirto qaylada iyo buuqa iyadaa sii daahiraysa tii taageed baa la sii tii fugeed baa la qabsanaya mar walba doorashada jiitamo oo ikhtiyaar wasa haddana dulfakra geena xaggeega ka imanmayso iyo dowladda toona qolataa waaya aragana waanu nahay oo madaxa qolada dhicidda iyo dee ninka ragga aan markula soo marine anagu sagaal qolada soo dhaco madaxa laga garaa adoo soo kacay oo soo toosayo in badan waa joogo aniga saarkeeda oo miga soo dhacay ragga ku soo ordayow adoo ka carriyaan ku arki doona sayidee ilaa inta haddana way ku wanaagsantay marka uu ku sii leeyahay taasaan ka eg waa dictator warintaa qoladayda dowladda taqaanay waxabato waxay u idhaahdaan dowladdaba si ninka loo siirisa maaho madaxweyneha maaha waa kan meelahaas kala walweynayska maqafre mar anoo hala raacayaa la arkaa mar anoo meelaha dadka iskala la arkaa marka waxba laygu cantaa baraha meesha ku xiisa dadkaa qabo dictaatoriyad wixii aad rag kala dagaalantay wixii aan soomaaliya raggii ka dagaalamaan oo ahayn dabka geliyey ee ilaa maanta dhibaataya jiitabas raggii bilaabaan oo ahayn inaa wixii aan ragga diidan rag ku sameeyaan xashaa ilaahi gamana tuuloodo aniga qaarkeed oo walaa xisbiyadaanay ka suurtoobin walaa walaalaha ilaa maanta wada hadlayna aanay ka suurtoobin war waxaad adigu qayrkaa diiday nin kale aad doola tegi maysid suurtagala maaha qoladaa nimanka hoosirana wuu sheegaya kuwa xisbiyadana waanu sheegayaa taasina waa waxaan qabaa inaanay meesha qabanayn taana waa caddaynaya aad iyo aad waa mahadsantihin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha